gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wafdigu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Baligubadle ee xarunta gobolka Hawd. Ujeedada socdaalka gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa la xiriidha diiwaangelinta codbixiyayaasha ee ka socota gobolada dalka Somaliland. Gudoomiyaha ayaa soo kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelintu ee magaalada Baligubadle. Intaasi kadibna waxaa halkaasi kelmado soo dhaweyn ka yidhi mas'uuliyiin isugu jirta odayaal iyo xildhibaano. waa mahadsantiin waan soo dhaweynaynaa wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolka Hawd waa gobolkaagii gacmo furan soo dhawow gudoomiye marka saddexaad waxaan u gudbinaynaa fariin dadweynaha ku nool guud ahaanba Somaliland gaar ahaan gobolka Hawd inay diiwaangelinta si fiican u qaataan oo si diiwaangeliyaan. gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa halkaasi ka hadlay. Baligubadle markii la aasaasiyay ayaa halkan iman jiray oo ku baraagahay ka samaysan halka imka dhulka arigan ku raaci jiray. maanta alxamdulillah waa caasimadii gobolka Hawd. halka waxa keenay tacaba geliseen halka magaalo midaysan ka samaysan lahaayeen oo loo dhisay karo iskuulkii oo loo dhisay caafimaadkii oo loo dhigan wixii magaalo u baahneed. marka aad iyo aad baan idku hambalyeynaya magaalada si fiican u dhisateen ee isku xamisheen wada yeelateen yaan aad ugu mahadnaqaya. maanta anagu ma socono campaign waxaan ku dhiirigelinaynaa inay diiwaangelinta si xoog leh u sameeyaan laana gobol baatiin gobolku waa inuu ismuujiyaa oo tusaa inuu qalmo gobolnimadiisa. taasi waxaa la isku jaangooyin doonaa haddii la yiraahdo horumarka waxa lagu qiyaasaa dadka inta tagan marka la ogaado ayaa inta iskuul u baahan tahay caafimaad u baahan tahay sariir u baahan tahay halkaas laga ogaada. marka inaan dhiirigelino siyaasadda wax ka weyn meel isku nahay waxa laga xaaska laga yaabaa in kala xusbi noqdaan laakiin wax ka weyn wada dhalashada iyo deegaan iyo ehelnimo iyo rixin baan isku nahay. marka waxa wanaagsan la isfaraa lagu farxaa cidii wax wanaagsan samaysatay lagu dhiiro lagu hogeera waa waajib. استعلاله هدريه Somaliland waa family waa qoys ilaa kala askar diga ilaa kala magan loo yacado dad waxana isku luqada isku afa meel iskuul wada galay ehla raximku haduu xoogsado oo kalgacalku bato oo salaantu badato khayrka bata samada ilaahay noo furiya khayrkiis abaarta ilaahay naga qaad. hadda waxa la sheegay inay maanta eergaabo roob ka daay insha Allah waa bilowgii raxmaadka wuxuu ku imanaya markan wanaag aan ku socono kitaabka Ilaahay sunnah rasuulka dhaqankii nabiga calayhi salaam aynu ku dayano gaari meeyni. marka waa taasaan ku yimi waxaan jeclahay inaan ku daro laascaanood waxa ka taagan waa ogti laascaanood dhibaatada maanta balaaratay in badan bay socotay oo dadka la ogaarsanayay. annaga gudoomiyahagii gobolka oo nin qiimo lahaa ilaa uu dhaxlay Maxamed Afrax waa lagu dilay. ninkii inoo hayay commissionka waa lagu dilay. ninkii xeeraaliyaha waa lagu dilay. kii uu dambeeyay ee ina maanta la dilay waxa xusbiga wadani. intaas oo dhibaato jirtay dawladda Somaliland Muuse imaka ku magacaaban yahay wax warna kamay soo saarin wax dadaalna kamay sameyn. marba ilaahay dadkii baanu qabanayo dadkii qabteen iyo dadka xireen inay dadka u soo bandhigeen uma soo bandhigin. horta saasay dawladnimo maanta halkaynu ka marinaa halkaas ahayd. waxaan leeyahay dadka reer Laascaanood waanu ka xunnay waxa dhacay waanu ka xunnahay. waa ogtiinoo mudaharaad baa dhacay August 12keedii
7 qof baa ku dhintay laysma weydiin waa xasuuq lama oran waa qalad dawladda samaysay laakiin cid loo aanay oo dawladda ahayn horta ma jirto marka waxaan leenahay dawladdu ha ka soo baxda mas'uulkeedii wasiirka amniga arrimaha gudaha amniga inoo qaabsana tuulooyinkii reerkoodu marmari hadda waxay halkay ahayd inuu soo ordo oo soo saaro statement oo nabadgelyo ka hadlo qof kuma dhashay qof baa ku dhintay hadda ilaa qof dhowr qof baa dhintay oo si qalad ah u dhintay ilaahay u naxariistay qaarna dhaawac baa jira maantana maalin Soomaali u baahan tahay dagaal 5 milyan oo Soomaali oo geeska degan ayaa macluul looga baqaya inaan maanta dadka u gurmaday moojaane inaan dadka hub u gelinoona isdirar Soomaali wax khayro ka jira oo wanaag ka imanaya ma jiro waxa leena waa ka xun walaalayaal dhibaatada dawladda ka sheeganaysan meel kasta way ka sheeganaysaa heer kasta uu ka sheeganaya degmo kasta uu ka sheeganaysaa waa hoggaanka Muuse Biixi ee wax tala reer Sheekh Saxaaqa oo reer ku jeeda ma jirto marka dadka iswada dhalay ee walaalaha ee ehelka ha isku dirina maaleeyo walaalayaal ha isku dirina maaleeyo fidma lama abuuro qofka haduu madax yahay wanaag buu ka sheekeeyaa haduu garaad yahay haduu suldaan yahay waajibkiisu wax weyn oo wanaag iyo isjecel iyo kelimado wanaagsan arintana waa arrin wada haysata waana ka wada murugaysanay dhimashaas kaligiin ma ahe waa tureer Soomaaliya oo dhan ku dhacday waa ku dhacay Ilaahay oo naxariisto dawladda wax leenahay xilkeedii ha ka soo baxdo walaalayaal Ilaahay nabadda inoo adkeeyo